aadad u mahadsantahay cabdullaahi annaku runtii deegaankan ma aanan qabsan waxaan ka qabsanna shabaabaan hore uga qabsanna laakiin haddeer waxaan ku nimid waxa weeye maadaama aan ayaan moogeyn baan soo booqanno soo ziyaaranay waana deegaankeenii dadkeenii ahalkeenii qaraabadeenii kulli ay joogaan waa deegaamadii aan ku dhalanno weeye marka shabaabaan hore uga qabsannay oon ka xoraynay haddana waa ay soo damaaciyeen markay soo damaaciyeenna shacabkiiyaa dib noogu yeera haddana annaka xoogaa ka maqnayn muddo sidaasaana ku nimid alxamdulilaahi rabbilcaalamiin haddana waxa weeye waxaan rajaynaynaa biidni illaahi alkariim in damacoodii ay soo damaacinahayeen ee dariiqyada ka jarahayeen oo meesha ka baxo sheekh maxamed war-saxaafeed aad soo saarteen waxaad ku sheegteen in cadowgiinnu uu al-shabaab yahay haddiiba ay sidaa tahay maxaad u aadi weyseen deegaanada ay al-shabaab ku sugan yihiin ee gobolka galguduud ama maamulka galmudug uga gacan sii weyseen la dagaalanka al-shabaab waa mahadsantahay runtii shabaabka waxa weeye dagaal oo dhamna uu yahaaba iska aad maahan waa inaad saldhig leedahay gurceel iyo gobolladani waxay ahaayeen inta aan xorayno hore u xoraynay inta xorta ah waa meeshii bayskii laga duulaya weeye maqcadkii ciidanka weeye markaasaa ayaka deegaamada ay haystaan laga saari karaa laakiin qof hawada jooga oon dhul haysan dhul kale ma difaaci kara mana xoray karo sidaa darteed waa maqaaciddii ciidamada dhulkaani markaa saas daraaddeed waa laga xoreynhayaa inta kalena insha allahulkariim haddii alla idmo ciidamada aad tiri ciidamadii dowladda iyo waa ciidamada hadda aan yacni maalanba la dagaalamahaya oo diyaarka u ah waa ciidamadii horay yacni ula dagaalamay oo mabda'a iyo fikrigaas ka zuuliya deegaanka ahlu sunna waljamaaca ka bacdina aan qayb ka mid ah dowladda aan ku wareejinay oo aan doonayna markaas deegaamada galmudug laga haysto in la xoreeyo oo dowladdu awood noo siyaadido laakiin nasiib darro dacfi bay u siyaadida deegaankiiyo waa la moodna qosa weyday buu yidhi inay inta ku taageerto aan deegaankan ka haysto sida ceelbuur oo kale ceeldheer oo kale galhareeri oo kale xaradheer oo kale degmooyinka laga haysto galmudug inay wax ka xoreeyaan waa midii qasadkeennu ahaa laakiin waa noqon weysay markii ay noqon weyso ciidankii laftiisu ay ku hankaageen oo arrintaasu ay dhacday waxaa dhacday inay ciidankii iyo shacabkii dib isu abaabulaan oo ay dhahaan aan dadka iska xorayno sida aad og tahay gurceel iyo dhuusamareeb inta ka dhaxayda waad ogtaha waxa ka jira oo kala go'day dee dariiqyadiioo la mari waayey wax walbaa iska yimid marka meeshii horumar laga rabay ayaa gadaal taraajuc u noqosho gadaal loo noqdaa timid arrinkaasi marka waxaa yacni dhashay in laysu dhawaaqdo la yidhaahdo aan iska kaashano nimankoo aan iska difaacno cidna uma maqna ceelna uma qodne sidaasaa arrintaasi ku timid marka mar kastana annagu waxaan leenahay dowladda federaalka ah maamul goboleedyada ha ka taageerto siday isu difaaci lahaayeen oo ay deegaamadooda u hormari lahaayeen waayo maamul goboleed kasta cudud iyo caqli iyo cilmi intaba waa dhex taallaa kaabiday u baahan yihiin federaalka uu kaabo laakiin inay dana khaasa ka yeelato danahooda ay ku caburido maahan uma baahno ama ciidamo dana gaara ay ka leedahay ay ka soo dejido oo ay ku caburiso ama ay dagaallo kaleeto kii shabaab aan ahayn ka dhaliso waxba taasi dan maahan waxa waaye dibu noqod weeye sheekh maxamed ilaa hadda inagu ma hayno meel intay dadku isugu yimaadeen ay idinkaga codsadeen inaad ka gacan siisaan la dagaalanka al-shabaab marka yay tahay cidda idiin dirsatay hawshan waxaan ka cabsanayaa inaad fagaarayaalka facebookyada iyo aada fiirinaan u malaynahayaahoo aad kuwa gaara fiiriso waxaa laga yaabaa yacni inaada daawan laakiin dadweynaha soomaaliya oo dhan uunbaaba u qaylyahay deegaanka maliskaba dhaaf inaan laga xoreeyo oo culimmada ahlu sunna waljamaaca meel kastay joogaan markhaati waxaa kuugu filan meesha la yidhaahdo wisil iyo bacaadweyn iyo intaba iyo baxdo iyo dhulkan waxa difaacayay waxay ahaayeen culimaauddiinka ahlu sunna waljamaaca ahaayeen haddeerna ayakiiya hortaagan dowla ku gacan siinana ma aragti bal ayaana inta yacni la ag tegayoo laysku sawiraa laga tegay annakuna hadda waxaas ma naqaan daacadnimaan naqaanaa lilaahi ah waxaan laqdaba lahayn waay waxaan annaku doonaynaa marka waxa waaye alxamdulilaahi
dadkaas deegaamadaa jooga markhaati kuugu filan oo annaku dadkan ka mid ahayn ah culimadeennii ah mashaaikhdeenii ah ardadii talaamiiddii aan waxbaraynay ah oo iskaashado mabda' ku dagaalamahaya laakiin cid gacan siida oo daacadaho nimankaas in deegaamada laga zuuliyo diyaar u ah unbay la'yihiin ma haystaan dowlad gacan siida in la hodo maahan maamul kaleeto gacan siiya ma haystaan meel cidlaha looga dhaqaaqay waa ogtaa adiga laftaadu maamulkana hadda deriska nala ah oo Puntland aadan ugu mahad celinayaa sidii ay nooga taageereen yacni ay dhaheen waa in galmudug iska difaacda al-shabaab oo annaku saan isaga difaacna aad isaga difaacdaan oo ay ku deeqeen baabuur teknika ah oo ay ku deeqeen yacni qalab raashin wax walba ay ku deeqeen baabuurtii aan islahayn waxaa la gey doonaa wisil iyo bacaadweyn iyo baxda ayaa la gey doonaa in lagu soo xareeyo dhuusamareebo baqaar meel inta lagu shubay markii annaka deegaankiina loo kaga jeedana lala soo aaday oo annakii hadda lafteed ma shabaab baana annaku waxaan ku baaqno shabaab halala dagaalamee marka waxaad moodaa afkaartii shabaabka arrin ay gadaal ka curunayso ayaad moodaa markii dadkii saas loola dhaqmay gacan haatintoodaanba ku soo noqonay inkastoo dal shisheeye joogidiisa yacni aad joogto markaad meelahaas joogda idaacadaad ka dhegaysanaysaa waa idaacaddii waddankaaga af soomaaligaad dhegaysanaysaa waxaad dhegaysanaysaa waddankaagii akhbaartiisa waddankii aad ku dhalatay waxa waaye aad iyo aad mar walba waa u hilowsan tahay marka alxamdulilah rabbilcaalamiina gacan haatintaas iyo danqasho aan ka danqanayno waxaan soo marna dib inala kugu celiyo mar labaad guriceel geeskiisaan labiley waxaa ku jaalla bohol weyn oo 56 shahiid hal maalina lagu wada aasay oo raggii waaweynaayo Sheekh Xuseen Cabdi Cami kamidin hogaaminayeen ma saasay ugu leedan raggii culimada meesha ugu dhamaadeen oo deegaankiina nabada Ilaahay ka dhigay noloshoodii waxay ku iibiyeen yacni in ay helaan raxmadna inay helaan ummaduna badbaado oo amni ay hesho marka saasa culimadii loogu baahan yahay laakiin caamana coodkii ku dagaalamaysa waad aragtay galmudug NGO waxay noqotay dibadda inta laga yimaado dool loogu yimaado inta jagada laga qaato diyaaradda laga raaco haddana markii xogaa ay dhamaato haddana dadka xogaa lacag inta loo keeno haddana laga dhoofo oo aan dadkii mashabaaba haysta madax furasha loo haysta deegaamadii loo haysta xataa dadka marka arrimahaas oo dhan waxaad xogogaalad ka tahay iska yeelyeeli waxaad ku soo celiseen inaad u mahad celinaysaan maamulka Puntland miyaa idinka taageertay arrintan waxa waaye qof kasta oo Soomaali ah waa u baahanaa inay gacan siiyaan oo nimanka ay naga gacan siiyaan annakaaba waxaan leenahay oo ku baaqaynaa Soomaaliya u midowda nimankaas kan karada ah oo ummadii aad ogeydeen sidii u baabiiyeen 14 Oktoobar oo hilibkii ummaddu isku darmay ayagoo dibad iyo daakhilba ka wada yimid oo deegaamadoodii jooga saad ogeyd u gubay war dadka noocaas oo naxariislaawayaalka ah aan u midowno marka inaan iska kaashano oo qolo walba hiba qoladay wax ku tari karta wax tarto taasi waa mid aan u taagano oo ku boorinayno ma inoo sheegi kartaa maamulka aad leedahay waan ka mid nahay ilaa waxaan ognahay in maamul goboleedka galmudug ay leeyihiin ciidamo maamulkaasi hoostaga kuwa dawladda dhexena ay gacan siiyaan ciidamada aan wadana annaku waa ciidamadii qaranka Soomaaliyeed weey waa ciidamada badbaadada galmudug weey waa ciidamadii badbaadiye deegaanka galmudug ay ku faanayso dadkii madaxooda ku badbaadiye weey marka galmudugna annaka dhuusamareeb isugu keenay annaka yacni gogasha u dhignay systemka wixii ka khaldamana in la saxo waa midaan u taaganahay in la saxo aan lagu danaysan waa midaan u taaganahay waaya Sheekh Maxamed aad baan ku fahmay maamulka galmudug ee uu hogaamiyo madaxweyne Axmed Qorqor ma aqoonsantiin maamul goboleedka galmudug waa midkii aan aasnay oo u tanaasulnay systemka cidii ku danaysatay oo yacni dan gaar ka raadsato oo aan dadku u danaynayna waa la wada arkayaa waana saxaynaa hadii Alle hadalkaaga ma ku micnayn karnaa in aad maamulka aqoonsantiin balse hogaanka maamulka ee uu madaxweynuhu ugu horeeyo aydan aqoonsanayn maya wixii xunna kuma taageersanin wixii wanaagsanna ku taageersanna Sheekh Maxamed waxa idinku eedeynayaa in abaabulkan ciidan ee aad wadaan iyo howlgalkan ujeedka ugu weyn ee ka dambeeya uu yahay in kuraas xildhibaannimo la siiyo shakhsiyaad uu ka mid yahay Cabdisamed Macalin Maxamuud maxaad uga jawaabaysaan eedda waxaan uga jawaabayaa waa hadalkaas oo kale waa dacayada dalley kooxda dalley dacayadooda waaye marka oo raba dad israba ama wada dhashay ama waalid iyo walaal isu ah ama yacni niya xaaskiis ah inay ku kala gooyaan dalleyda dacayadoodii waaye taas jawaabteedu intaasna uga gudbaya
muddadii aad gacanta ku hayseen deegaano ka mida maamul goboleedka galmudug dad badan waxay idinku eedeeyaan in dadka iyo deegaankuba dib u dhac xoog leh uu ku dhacay tan iyo markii maamulkan dib loo dhisana waxaad og tahay in isbeddel uu ka bilowday deegaanadii waxaaba laga yaabaa in sidii la rabay aanu noqon uu tartiib tartiib ku socdo hase yeeshee markaad eegto magaalada caasimadda ah ee dhuusamareeb noloshii way isbeddeshay magaaladiina way dhismaysaa deegaanada kaloo deegaanka ka mida maamul goboleedka galmudugna sidaasi oo kale ayaa dadku ay rajo uga qabaan inay isbeddelka qayb ka qaataan maxay tahay waxa idinkaga muhiimsan in dadka iyo deegaankuba uu hormaro dowladnimadan uu qayb ka noqday aad raadinaysaan waa mahadsan tahay cabdullaahi runtii waxa waaye qofbas waxba u yaqaanaa horumarka markii ahlu sunna ay joogtay amniga waad ogeed sida uu ahaa dariiqyada iyo guryaha iyo magaalooyinkoo dhan bannaankaa la iska seexanayay bal waa lala yaabanaa amniga deegaamadaas uga sugnaa dhismaha aad sheegaysana kii ka socda markaasaa badnaa iskaba dhaaf midkaan hadda khaaska ah oo qof walba uu yacni wax samaysanahaye mid guudoo hadda galmudug laga sameeyey annaka bacdigeena waaba la isweydiinayaa adiguba dibadda adoo joogay inaad ujeedda anigu ma aqaan oo aad aragtay marka galmudug waa xogogaalan u nahayo waa naqaanaa deegaamadoodaan naqaanaa waxa alla wixii yani dadkii ka soo shaqeeyaan ahayn dadkii mas-uuliyiintoodaha baan ahayn marka horumarkeeda midka ugu weyni waaba amniba mid amnina waa midii ay haysata asagiina waa la tirtiray meel lagu kala qaxayo qof walba heba waaba iska niyad jabay oo yani markii qaraxii lagu sameeyey waddadii ay go-an tahay guriceel waa caasimadii ganacsiga galmudug wey ha ahaatee kaala hadda waa kana fiir shabaabkiiya inta xoolihii ka aruursada ayuu suuqii wuxuu ka qaadahaya canshuurta ay ka qaadaan oo kale uu ka qaadanaya asagiina markaasaa ninkii xeradiisa labada riyood ridna shabaab uu ka qaata tii kalena uu soo saartaa meesha lagu wada gadahaya arrinkaasina arrin waxaa waaye mas-uuliyad darraa wax mas-uulahoo ka hadlaana arki maysid arrinkaa marka dhibaatada ah oo saasa horumar miyaad adigu u taqaanaa maya horumar maahan qof caqlihina u fahmi maayo horumar u fahmi maayo waa dibudhac meeshii ugu hooseyda waaye marka dibudhacaasna waa midda aan leeyahay sida uu ku yimid iyo sababta keentay waa in la iska warsadaa lagana wada hadlaa deegaanka iyo deegaanka iyo yani dadka waa ka dhexeeya reer galmudug oo dhan waa ka dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya wixii markaa galmudug ay uga baahan tahay inay ku taageerto oo ay maalan yani ku gacan siido waa waxa loo baahan yahay laakiin wixii dhibaato u keenaya galmudug wixii dhibaato u keenaya maamul goboleedyadoo dhan in ay ka daayaan waa midda anugu baaqno mar walbaba marka aad ugu mahadsanta sheekh maxamed waxaad og tahay in markii ugu dambeysay la dhisayay maamul goboleedka galmudug ciidamadii ahlu sunna la qarameeyey oo maamulka lagu daray xildhibaanana waxaad ku leedihiin maamul goboleedkan galmudug maxay tahay sababta qasbaysaa in aad mar kastaa dib u soo laabataan waa mahadsan tahay horta annaku waa joognaa dib uma aan soo noqnaba aanama teginba waan joognaa annaku waxaan u joognaa hadafkeenu uu yahay deegaamada iyo dadku inay badbaadaan diinan wa dunyanba inay u badbaadaan waaye waxa laga badbaadinayo oo ugu daran hadeerna waa nimanka khawaarijta oo al-shabaab wey marka badbaadadaasaan u joognaa dadka barnaa oo dadka aan u sheegnaa hadday xagga waxbarashada tahay haddii ay tahay qofka fikrigiisa la badbaadiyo waad aragtay ilmo yaryaroo lagu qancinayo inuu asagu naftiisii isqarxiyo madaxa iska jaro aa lagu qancinayaa deegaamadan kama aysan jirinin in maalan ba arrimaha noocaas oo kaleeta dadka la baro hadeertaan waxa waaye afkaartii ayaa soo dhex gashay deegaamada oo dhan waxaan doonaynaa waxyaabaha noocaas oo kale in lagala dagaalamo maamul goboleedyada ugu baaqnaa dowladda federaalkaan ka gacan siinaynaa hadafkeenna annaka iyo ujeeddadeenna aan annaku doonaynaa waxa weeye in lala dagaalamo si wada jir ah nimankaa kaankaraha ah ee ummaddii ibaadinayo baabi'inayo cidna aan reebaynin in lala dagaalamo oo deegaamada laga dahiro wixii afkaartaa ka soo noqonahaya yani la yiraahdo ka soo noqda wixii aan ka soo noqonayna yani lala dagaalamo oo dadkii laga ilaaliyo waxaa weeye runtii wax waajib oo nasaara waay annaguna mas-uuliyiintii waxaan nahay xaggii diintii wax laga weydiinahayay xaggii yani shacabkii bulshadii way weydiinahayeen marka iyakana waa ku boorinaynaa nafteennana waa ku boorinaynaa hadafkeennuna kaas weeye sheekh maxamed aad baad u mahadsan tahay aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa sheekh maxamed shaakir cali xasan oo qadka toos iigu warramayay isagoo ku sugan degmada gurceel ee gobolka galguduud